siirada Soomaaliland agaasimayaal guud oo wehelinaya xogahayaha guud ee ururka IGAD ayaa booqasho howlad oo ay ku hubinayaan mashaariicda dhinaca wadooyinka ee asarda ka wada inta u dhaxaysa Dila iyo Boorama iyo Jaamacadda Camuudiya Eelo waxaana waftigaasi si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Boorama maamulka gobolka Awdalka degmada Boorama iyo mas'uuliyiinta sare ee hay'adda amarinta jidadka gobolka Awdal oo horkacay kusimaha gudoomiyaha hay'adda asarda Cabdiqaadir Aadan Nuur iyo maamulada Jaamacadda Eelo iyo Camuud waxaana waftigii inta uu joogay soo boqdeen Jaamacadda Camuudiya Eelo akolo ay qiimeyn ku sameeyeen wadada dhismaheeda ka socda inta u dhaxaysa magaalada Boorama iyo Dila waxaana ay kulamo kala duwan la yeesheen bulshada Boorama noocyadeeda kala duwan waxaana munaasabadii lagu soo dhaweynayay hadal ka jeediyay xoghayaha fulinta ururka IGAD Maxbuub Macalin Xasan oo ka mahad celiyay sidii diiran ee loogu soo dhaweeyay magaalada Boorama ayaa martii warka gaarsiin karna hadda waxaan saxay waqti dhowr usbuuc loo joogo laba usbuuc meel laga joogo finance agreement ki jidka ka baxayay wajaale ilaa iyo Berbera design case planning ki feasibility ba marka diyaar marka ka bacdi ba dhismadii arrinta gal doona waan ku dareynaa in jidka rabta mas'uulkan maanta planning process ka xaqiiqda badi waxa laga helaa lacagaha iyo plan process galina direeyada waxaan soo diiray inay noqoto مشروع مارتي priority oo maartay lagu dhaqan karo waxayaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci iyo maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile waxaana u jeediyay waftigaasi codsi la doonayo in lagu caawiyo wadada sameynteedu socoto kusimaha gudoomiyaha hay'adda asarda iyo injineerka wadadaasi dhismaheeda wada oo labadooduba ka waramay halka ay wadadu marayso adiga laftigaaga sinjiyadii magacii dhiigii Soomaaliyeed baa ku jiro iyadana dhiirigelin bay noo tahay runtii waxaan garanaynaa inaad dareen gaar ah siin doonto oo noo dimaqsan doonto runtii waxaad arki doontaa dareenjiya aan wadno runtii waxa ka horeeya in 8 kiiloomitir runtii dariiqii ugu darnaa dhinaca gobolka Awdal waxayaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha Professor Faarax Cilmi Geedoole iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Ali Xamuud Jibriil waxaana sheegeen inay ku faraxsan yihiin in wafuud noocan oo kala ay yimaadaan dalka Soomaaliland ayna kaalin wax qabad leh ka qabtaan dalka Soomaaliland ka socda